ganacsiga waxa maanta la dirirayo ee gabagabada ah ee baaba'ay ee cagta la mariyay waa kuwii shalay ka qaadiyay baad waa kuwii waxaad awoodid iyo waxaad awoodinba fariinta inta kugu soo dira message-ka wiilka yarka ee Suuriyaanka intii loo soo diro loo soo turjumo oo message kugu soo diray oo ku dhahayay inta Soomaaliya baan u baahanahay halka ku ee adoo dhuleynaya oo dhididaya oo baqaya aad ugu shubisay akoonka kii weeye midka wiilashaan ilaynayaan oo wiilashaadu dilayaan oo qabanayaan oo godadka ugu dhacay wiilkaaga maanta laynaya kuwii adigu ku baadayay wuxuu kaaga baahan yahay garab istaag haddaadan wax weyn tarayn wixii shalay baadi laga qaadi jiray ee aad ku qanacsanayd ee aad la aamusnayd ee aad ciyaanada la huwan jiray markaad bixinaysay intii waxaad samaysaa qayb kamid ah saddex meelood meel kamid ah daarti bix oo dawladda la garab istaag oo ku bixi akoomada dawladda shalay ba akoomada daashta ku shubaysay abka reer Puntland ee dadkii isku duubnaa shalay ee isku duubnaan jiray ee markastoo cadow soo waajaho hadday shacab noqoto hadday ciidan noqoto garabka isku ahaa waxaan idin leeyahay hawsha aad wadaan waa idinku bogaadinayaa dhiiranaanta sidaad ciidanku garab taagantihiin si uma baahna wiilka maanta ku dhintay calmiska sababtoo ah waa qof nasiib badan oo naga shahiiday oo jannadii ilaahay iyo hadii aan ku rooyo khayrkii alle iyo nabiga micii noqday kaasi tacsi uma baahna qurbajoogta reer Puntland ayaga fariin gaarsiin maanta xaalku meesha maraya wada jeedaan waxba idinka ma qarsoona moor aad shirsi qabataan moor aad waqti si bixisaan moor waqti idinka sii dhumo macna weyn soo siyaadin maayo waxaad samaysaan dhaqaalihiina hura bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan rabaa marka koobaad saddex qodob inaan ka hadlo marka koobaad shacabka reer Puntland waxaan rabaa inaan halkaan fariin u mariyo sidoo kale qurbajoogta reer Puntland أنا شعب كسيكر قاضية إن فرين أمريان ربع هالكان سيدو كله جنا عصير المثلنا إن فرين لكم أمريان ربع فرين تنا يجرسين كور أنت أنا فرين محاس صدق القضبة أنا قد بين حربا أنا وربحين رين خصيو دقال كمان تدعي ساك هيرتي وبري وير أي العي دول جهة له وأرجع حسدو رجوب بيكسني يجوا كواسو أديكسني qaraxyo mootooyin lagu wado kuwa baabuur lagu wado infantry qaraxyo ku xiran yihiin iyo infantry caad u dagaalamayaba ilaahay baa mahad iska leh ilaahay wuxuu guusha galadsiiyay sidii caadada ahayd ciidamada xaq u dirarka ee Puntland waxa ay qabteen dhammaan talisadii ay weerar ka soo qaadi jireen waxay socdeen ilaa masaafo gaaraysa 22 kilomitir ayay socdeen oo dagaal lagu gaaray khawaarijta inta ciidanku meedkoodu dul istaagay warbixintii ugu dambeeyay waxay marayaan 107 qof oo ajnabi u badan Soomaalina ay ku jirto Soomaalida awal lama arki jirin laakiin waxaan u maleynayaa hadda ajnabiga gabagaba maraya sidaas ka liftay Soomaalida la arko meedadkooda baabuur badan oo qarax ku xiran yihiin waa la qabtay oo suutaradii ama darawaladii laga gubay macna laga dilay darawaladii kadibna aan qarxin iyo kuwa qarxayntaba mootooyin drones wax allaale waxay maanta adeegsan kareen waa adeegsadeen dagaalkaasi wuxuu bilowday labadii habeenimo oo markii hore ayagu ay attack soo sameeyeen ismiidaaminta kadibna attackgaas markii la iska qabtayna ciidanku ay hore u soo dhaqaaqeen oo ay socdeen masaafo gaaraysa 22 kilomitir oo lagu tagay saldhigyadii ay daroomada ka soo kicin jireen ama godadka u ahaa ama xuduntii ay ka soo duuli jireen intaba meedadka inta aragnay ama ciidanku arkay waa 100 iyo hadii ku rooyahay intaas oo qof dhaawacoodu inta badan waxay qaateen maahe wixii kale meesha lagu dhiibtiray ama lagu dilay qaybtoodna waa qarxaysayba ilaahay guusha wuxuu kula siiyay ciidamada reer Puntland ee xaq u dirirka qof kasta oo xaq u diriraya sideedana ilaahay guul darama dhigay guushu soo siiya intaasi waa warbixinta hadii aan ku rooyahay dagaalkii xalay ilaa maanta way jiraan khasaare anaga ah iyo dhaawacyo fudud waliba inta badan u badan oo iyo dhimasho intaba oo ayana aan badnayn oo ilaa
ilaa 9 qof meelaha soo xagga ka dhimatay waa jiraan ciidanka ah xaqu dirarka ee dhimatay laba kale shahiiday waa jiraan dhaawacna waa jiraa aan inta badan fudeed u badan qof kastoo xaqu dirarna sida nabadu ama waxaan raadinayno oo nabad iyo nolol ah waxay ka dambeeyaan dhiigga iyo dhimashada gadaashada yaala oo taas rag meesha u aad inta kadib waxaan rabaa 3 qodob inaad fariintan iga qaadaan adiga gaarsiisaan dadka aan wado shacabka reer Puntland dadkii isku duubnaa shalay isku duubnaan jiray markastoo cadow soo waajaho hadday shacab noqoto hadday ciidan noqoto garabka isku ahaa waxaan idin leeyahay hawsha aad wadaan waa idinku bogaadinayaa dhiiranaanta sidaad ciidanku garab taagantihiin hal midna waa idinkaga digayaa oo waa idinku boorinayaa tacsida badan iyo haddii aad ku iska daysaan tacsi uma baahna wiilka maanta ku dhintay calmiska sababtoo ah waa qof nasiib badan oo naga shahiiday oo jannadii ilaahay iyo haddii aad ku rooyo khayrkii alle iyo nabiga micii noqday kaasi tacsi uma baahna waxa loo baahan yahay kaliya inayna meelaha ka tacsiyeen aad ficil wax kasta oo aad qabanaysan u bedeshaan inaad ciidanka garab istaagtaan inaad cadawga ilgooniya ku fiirsaan inaad feejignaataan inaan inta dagaalku ciidanku ku jiro inaan magaalooyinka amnigoodana aad sugtaan shacabku waliba ay sugaan oo ay meel kasta ay ka shakiyaan ay wacaan ciidamada oo garab siiyaan oo ayagu soo qabtaan sidii aad qaban jireen caadadaydi ahayd shacabka taas aan leeyahay tacsi looma baahna ee waxa loo baahan yahay wax qabad waxa loo baahan yahay wiil kasta iyo gabar kasta inaad dhiiga shubtaan inaad feejignaataan inaad ciidanka garab siisaan inaad wax allaala waxaad ku sabad gareyn ka dhaan ciidankiina xaq u dirarka ku sabad gareysaan waxba soo korin mayso inaad wiil mujaahida oo walaalkaaya oo dhintay aad Facebook soo dhigtay ama u taasi intaas ka leeyahay waxaan rabaa ganacsatada reer Puntland inaad fariin iga gaarsiisaan ganacsade waxa maanta la dirirayo ee gabagabada ah ee baaba'ay ee cagta la mariyay waa kuwii shalay ka qaadiyay baad waa kuwii waxaad awoodid iyo waxaad awoodinba fariinta inta kugu soo dira message-ka wiilka yarka ee Suuriyaanka intii loo soo diro loo soo turjumo oo message kugu soo diray oo ku dhahayay inta Soomaaliya baan u baahnahay halka ku ee adoo dhuleynaya oo dhididaya oo baqaya aad ugu shubaysay akoonka kii weeye midka wiilashaan ilaynayaan oo wiilashaadu dilayaan oo qabanayaan oo godadka ugu dhacay wiilkaaga maanta laynaya kuwii adigu ku baadayay wuxuu kaaga baahan yahay garab istaag haddaadan wax weyn batarayn wixii shalay baadi laga qaadi jiray ee aad ku qanacsanay ee aad la aamusnay ee aad ciidamada la huwan jiray markaad bixinaysay intii waxaad samaysaa qayb kamida 3 meelood meel kamida daarti bix oo dawladda la garab istaag oo ku bixi akoomada dawladda shalay ba akoomada daashta ku shubaysay dhiiro habaqi ilaahay baad leedahay naftu maalin bay goodaa wixii aad ka baqaysay shalay waxa aad ka liita ee ducufada ee godadka meena ka soo tuuraya godadka loogu dhacay bay ahaayeen ma ahayn wax awood badan lacagtii shalay laga qaaday ilaahay kaama qaadin ayad quraana kaama qaad lagu soo dejin culumma kaama qaadin sadaqa culimada iyo baqdin baad bixis ayadoo ka sharaf badan ku bixi wiilkaaga dhaawacmaya ee dhimanaya ku bixi oo dawladda si oo maanta garab istaag dawladdaada iyo shacabkaaga ganacsatada fariinta ay gaarsiin oo hadii in yar oo damiir oo dadnimo ah oo Puntlandnimo ah oo hadii la ku roon yahay nolol ay ku jirto intaas samee maanta intaas wax weyn oo ah dawladdu ku baadi mayso aday dawlad ku tahay aday ku ilaalisaa garab istaag hadii aad garab istaagin waxa meesha imaan doona kuwii ku baadiyo kale baa imaan doona marka garab istaag si aan lagu baadin oo maalin kasta wiil yar oo Suuriyaana ama mid yar oo Marookiyaana ama mid yar oo Sambiyaana inta ku yimaado uusan lacag baad baad awoodin ka qaadin garab istaag dawladda dal kasta oo horumaray wuxuu ku horumaraa dhaqaalaha shacabkiisa dhaqaalaha ganacsatadiisa muwaadiniinta ee garab istaag intaas fariintaas iga gaarsiiya walaalaha ganacsatada reer Puntland qurbajoogta reer Puntland ayaga fariin iga gaarsiiya maanta xaalku meesha maraya wada jeedaan waxba idinka ma qarsoona moor aad shirsi qabataan moor aad waqti si bixisaan moor waqti idinka sii dhumo macna weyn soo siyaadin maayo waxaad samaysaan dhaqaalihiina hura
rag dadka idin dhimanaya deegaankiini dadkiini way maanta waxa la idinku haysto wiilasha idin dhimanaya garab istaaga dhaqaalaha hore qurba joogto waxaan ku amaanayaa ana idinka jaayis idinku noqonayn ama ana been idinka sheegay Puntland walaas kasto ku yimaada kuwa u baxsato oo qurba joogto kuwa dhaqaalada ku bixin jiray qurba joogto kuwa ay garab istaaga markasta qurba joogto laakiin habacsanaan baa idinka dareemaya habacsanaan ayaa sanadkan idinka muuqata min fadlikum shirarka badan iska daayay sidii hore madaxweynuhu kugu sheegay degdeg uga jawaaba dawladda danahay reer Puntland waa dhig baxayna dhaqaale ahaan waa u dhig baxayna ciidan ahaan waa u dhig baxayna dhaqaale ahaan u garab istaaga dawladii waa dareemi karnaa canshuurta la qaado iyo capacity-ga dawladnimo iyo awoodeena waa dareemi karnaa waa dagaal waxaan ku jirnaa aan cid naga caawinaysa jirin cid naga kabaysa jirin annaga iyo ajnabiga aan ishaynaa aan soo dhanna waxaan la dagaalamaynaa ilaa 30 dawladood oo dhaqaale ka soo qaatay soo burburiyay dhaqaale haysta naga dhaqaale badan baan la dagaalamaynaa laakiin annagu waa ka karti badan fadlan dhaqaalaha hore bixiya garab istaaga haday daawo noqoto iyo haday rasaas noqoto iyo haday shidaal noqoto intaba dadka looga baahan yahay waa qurba joogta oo la rabo maanta inay garab istaagaan dawladooda sidii aad hore u garab istaagi jirtay tii horena waa idinku bogaadinaya tanna waxaan idin leeyahay dadjiya oo gacan dhaqsado oo maanta waxba ha dhiganina maanta waa maalin aad u adag xilli aad u adag waqti adag dagaal adag aan ku jirno waxba ha reebanina maanta ee dhaqsada oo dadjiya intaas baaqaygu waxaan ku soo kordhinayaa oo kale ganacsatada waa ka hadlay shacabkana waa la hadlay qurba joogtana waa la hadlay shacabka reer Puntland markaa waxaan leeyahay isku tiirsanaada tacsida badan joojiye waa aragteen kuwa maalayacniya oo qabyaala dilootay oo dad wada dhashay oo walaalaha kala dilay kuwaas waxaan leeyahay ka waantoob kuwa dadka wada dhashay ee walaalaha labada wiil ee difaaca ku wada jiray ciidanka ee isku malakamoodka ee isku xabada jabaatiga kala goosta ninka qabiilka u kala yeelayo ka waantooban ku leeyahay lama horaan waa cawska jiilaal halkaani waa meeshaad ku dhalatay tani waa meeshaad u dhalatay kani waa dhulka ku horan weey hadaad maanta fogtahay ama qurba ku nooshahay markasta waxaadan hurayn kanaadan hurayn hadaadan dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada wax tarayn oo aadan u dhimanayn fadlan afkaaga ha ka nabad galaan intaasina waa codsi aan u dirayo kuwa maanlaawayaasha ah ee qabyaaladda ciidanka la dhex fadhiya ee qurbaha ka soo qaylinay waxaan leeyahay walaalka baan nahay walaalaha baan nahay hadaadan waxna tarayn waxyeelada kaliya naga daa waa la sii noolaanaya waa la kaftami doonaa adduunku maanta laamay mayo adiguna waa jiri doontaa maalin waxa hor dhici doonta aad hor timaadid adoo naga qajilaya aragayga adoo naga qajilaya ina sida aan loo fiirisi xumaanta aad noo geysata awgeed marka maanta ay soo dhicin walaal waxba hana tarin waxyeelada kaliya naga daa aad baan idin salaamaya shacabka reer Puntland guul baan leeyahay shacabka Soomaaliyeedna guul baan leeyahay insha Allah kuwa ilaahay guusha soo siiyay ama guusha ilaahay markasta garabkooda ka dhigo waa annaga waxaana keenaya xaq oo aan ku taaganahay Allahu akbar leeyahay wassalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh